الحمد لله maanta waxaan dhex joogaa labadayda ilmood maasha allah maasha allah. waxay wax badan yiraahdeen hadalla ay dhibso jirtay isla markaana ay ku dareemi jirtay gucasho badan. waxay wax badan u soo qoreen, qaarkoodna muuqaal ahaan ay u dhihi jireen waad weyn tahay, da ahaan aad ayaad u weyn tahay, maad guursatid, maad fadhiga ka kacdid. iyaduna waxay noqotay qof ciishoota. calafka iyo nasiibka, xulashada iyo doorashada alle xaggiisa ayay ka qoran yihiin, laakiinse ruuxa aad xulanayso sidoo kalena ruuxa noloshaada aad u dooqanayso waa mid uu noloshaada maalinun ku soo biiraya, balse waqtigaas waxa ogow keliya allah. dad badan waxay yiraahdeen qaarkood aflagaado gabadhan ay u geysteen. magaceedu waa Samiixo Khaliil, laakiinse waxay sheegtay in intaasoo dhiba oo dadku ay u geysan jireen ay ahaayeen wax dadkaas iyaga ku kooban, laakiinse iyadu ay tahay weli qof qalbigeedu uu wanaagsan yahay. markaan Samiixo waxay waqti la qaadanaysaa aabaheed oo halkay ku nooshaa ugu yimid. waxay tilmaamtay in hadda ay ku wada sugan yihiin meel jawi qurux badan, iyada iyo sidoo kale aabaheed iyo wiil la dhashay. waxay sheegtay Samiixa inay ku faraxsan tahay in walaalkeed iyo iyada ay si toosa u wada kulmaan aabaheeda. waxay sheegtay gabadhan in aabaheedu uu yahay shakhsi yar, qof walibana uu dareemi karo da-da aan jiro aniga. dad badan waa ay xagxaga jireen, waxay iga sheegi jireen been, laakiinse qof waliba waxaan u caddeynayaa da-da maahan mid qarsoomaysa. sidaa daraaddeed muuqaalka qofkaan idiin muuqanaya waa aabahey. waxa uu ku jira aabahey dhexdeenna, aniga iyo sidoo kale walaalkay. wuxuu inala qaadanayaa waqti qurux badan, waana maalin jimca. gabadhan ayaa dad badan oo hore qoraallo qaldan ay ugu soo qori jireen qaybta kommentiga, isla markaana ay ku bahdili jireen qoraalladaasi. waxay muuqaalkan ugu dhigtay tusaale ay ku qaadan karaan in qof waliba da-du uu jiro ay ku xiran tahay keliya ruuxa dunidan u jooga ee waalidkuwa. waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay la kulanka aabaheeda, isla markaana muddo badan ay ku riyoonaysay in maalinun ay arki doonto aabaheed, maadaama muddo badan nasiib aysan u yeelan in aabaheed ay la kulanto. Samiixa muuqaalka aabaheed ay kasoo duubtay isla markaana ay soo dhigtay barteeda tiktoka. dad badan waxay u arkaan in Samiixa cadowga muddo badan ku dhegnaa hadda isaga fujinayso keliya muuqaalkan inay arkaan. dadka qaar waxay ku leeyihiin qaybta kommentiga gabadhan inay yar tahay. waxaa idin caddeynaya aabaheedu waa qof dhalinyaro ah. Samiixo ha kaa haro, wax badan waxaa lagu yiraahday waad weyn tahay, dhalin ayaa tahay, guurka waad ka daahday. tani waxay caddeyn u tahay in muuqa aabahaaga uu yahay qof dhalinyaro ah. waana arrin farxad badan in aabahaaga oo dunidan ku nool aad la kulanto muddo kadib. sideed u aragta adiga? gabadhan ma ka mid ahayd dadka sida qaladaadka qaybta kommentiga ugu qori jiray? aabuhu waa waalidka wehelkeena, bal fiiri qiimaha iyo sidoo kale farxadda uu u muujinayo gabadhiisa. maalinka koowaad ee garoonka uu kasoo degayay iyo sidoo kale maalinka gabadhiisa u arkayay, laabta ayay isgeliyeen farxad darteed. muddo badanna waa isku dul ilmeynayeen. tani waxayna tusinaysaa in waalidku uu yahay midka mar waliba xaggiisa daawada qalbiyadeena ay ku degaan aynu ka helayno. maantay aabaheeda waxa uu u jebiyay cadow badan oo gabadhan qalbiga ka dhaawici jiray. ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.